kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal mar kale iyo maqal kale oo maqalkii shanaad. waa habeenadii deganaa ee Canada midkood waana xilli roobaad qurxoon. qalinkii ayaa yaraha kaday, fikirkiina wuxuu u dalxiis tagay fagaaga sare si uu u soo weeleeyo. markaas ayaa dhugtay bilicda dhirta caleemaheedu isu bedeleen huruuda ee u warwaraya sidii ay xidiga yihiin. haddana ma luugahan fiirshay oo aan baaladaymoodey quruxda dabeecadda ee buuraha iyo geeduhu ay ismuxubaraacayaan. habeenkaa daahiisa rogtay, jabaq ma maqlaysid ee sanqantirashada ayaa awoodda la wareegtay. habeenkaa ashqaraar kale, jawiga qurxoon iyo cimilada dhexdhexaadka ah ee xagaagii hadda laga soo doogayo foodana lala sii galayo dayrta ayaa aan ku laabtay gurigaygii. kolkaas ayaa aan kala furay kitaabka eebe. saa waxaa indhahayga ishaleeleen aayadda la yaabka leh ee samada sokana waxaanu ku nuuradaynay nalal. wazayanna samaa addunya bimasaabiixa. waa maxay hadalkan cajiibka ahi? waa maxay quruxdan sarraysaa? waa maxay sallowxan farshaxanka ah ee lusha dhulka iyo cirka dhexdoodu? yaa ka sheekeynaya quruxdan iyo weynaanta lamaan? waa eebe oo leh qurux dhan, weynaanta dhan iyo qaybtirnaanta dhan. habeenkaa waxaan isweydiiyey, yaa qaadi kara xilka fanka heerka sarreeya? yaa quruxda koonka kaga sheekayn karaa afka quruxda? yaa curin kara in uu ka hadlo koonka qurxoon nafsad gabaynimo iyo maan mala awaalasho? meeyey qalinkii hadraawi? meeyey qalinkii cabdiqays? meeyey ashqaraaradii gaariye? aaway masraxiyadihii sangub? meeyey codkii siciid xamar qoodh? meeyey codkii maxamed fursheed? aaway layaabyadii kooxdii waa beri? meeyey codkii curinta lahaa ee xasan aadan samatar? xaggeese ku dambeeyey codkii dhasracaadka lahaa ee cabdi nuur allaale? habeenkaa in badan ayaan ilmeeyey, waayo fankii sarreeyey wuu dhintay. waayo fanka hadeer ma sida fariin faneed iyo dhadhan suugaaneed midna. waa qoobka ciyaar ka madhan suugaan iyo asluubba oo uu la socdo muusiga cod dheer oo aan lahayn qiimo ilbaxnimo. markaas ayaa aan xasuustay in ummadani ay usii ruqaasanayso jidkii ay nafteeda ugu dili lahayd garoon kasta. habeenkaa waxaan xasuustay masraxiyadihii ujeedada lahaa ee lagu dhigi jiray tiyaatarada ee yeeshay maamuuska caalamiga ah, arrimaha bini'aadamnimadana uga hadli jiray qaab suugaaneed koraysa iyo afgebigiisuba hal xidhaale ah. waxaan xasuustay bandhigyada kooxdii waa beri iyo sida ay uga buuxeen qodobo fekereed, diineed iyo xataa suugaaneed. sidoo kalena waxaan xasuustay masraxiyadihii kooxda gacan macaan ee Jabuuti. waxaa kaloo aan xasuustay heesihii af ahaan, nuxur ahaan, dhigis ahaan iyo hanaan ahaanba sarreeyey. kolkaas ayaan jaleecay fanka hadda, heesaha qaabka daran iyo sida kama dambaysta ah ee noloshii masraxiyadu uga maqan tahay Soomaaliya iyo Jabuutiba. in qaybtani fanku geeriyooda wax badan ayay uga dhigan tahay nolosha. bulshadii aan qaybtan wax ka curin waa ummad taariikhda ka baxday. curintii ayaa istaagtay, masraxii ayaa aamusay, rasaasta ayaa hadashay. waxaana fatahay hadalka aan dhadhan iyo dhusur toona lahayn. waxaaba aynu aragnay in heesaha Jabuuti iyo Soomaaliya ay iskaga eegyihiin xagga hanaanka iyo nuxurkaba. kulli waxaa laga heesayaa jacayl iyada oo aan jacaylba lahayn. heesaha dambana ruux ma laha. berisamaadkii heesaha jacaylka waxaynu ku arki jirnay fanaankii quruxda, codkii soo jeedashada iyo hadalkii dhasarcaadka lahaa ee xasan aadan samatar. sida oo kale ayaynu heesaha quruxda iyo fanka ujeedaysan ugu arki jirnay fanaankii ruuxda kacdoonsan lahaa ee fursheed. waxaasoo dhami way ku daayeen xilligan wax la'aanta ah ee fanku dheesha yahay, quruxdii iyo xumihiina la isku milay, ee afka uu ka dhintay fakarkii lana waayey luqadii qiimaynta fakarka iyo suugaanta. fanku waa bikaacada bulshada, waana afhayeenka rasmiga ah. ummad aan suugaan lahaynina ma jirto, shacab aan fan lahaynna ma jiro. balse maxaynu odhanaynaa kolka qalinku ka qaxo fankii ee uu suugaanyahankii faraha ka qaado qadiyadaha bulshadiisa? muxuu xalku noqonayaa marka ereygii noqdo xumo akhlaaqeed? maxaana la yeelayaa
marka waxqabadkii suugaaneed ay idilkood ka dhammaan waayaan meelaha liita. gobolkani geeska Afrika sidee ayuu mar kale u soo saari karaa suugaanyahano la dhiga heerarka la soo maray? sidee ayaynu u heli karnaa suugaanyahan la heer ah hadraawiga maanka falsafadeed iyo suugaaneed isku darsaday? ummaddu waxay ku guuleysatay in aanay taariikhda uga soo bixin sidii la rabay, balse ma aysan ilaashan marxaladda suugaaneed ee nolosheeda soo martay. qadiyado kulkulul ayaa inoo yaala oo ay ka mid tahay sida dowladnimadu ugu burburtay Soomaaliya uguna bayhooftay Jabuuti. guddigood waa arrimo qumuuyada iyo qosolka isku darsaday. waxa inoo yaala qofkan qurba joogga ah iyo dhibtiisa qurbaha ku haysta. sidoo kalena waxaa arladu la circiiraysaa qofkan aan haybna haysan ee dalkiisii qurba joogga ku dhex ah, darxumadana ku nool ee raadinaya raaxo dhalanteed ah oo aanu helayn. waxaa kale oo inoo yaala qofkan u qaxay dalalka shishe isagoo oo raadinaya nolol maamuus leh balse dayaca dambarsaday. waa qof isla oo iska dhex raadinaya hawashada bulsheed. haddaba yaa diiwaan gelinaya xaaladan u gaarka ah qofka ku nool gobolkan geeska Afrika? meeday hal abuurnimadii xilligani? hab qoraalku muxuu isaga keen ekaaday? halkay dhiiladu taallaa? ma mid faneed baa? ma mid siyaasadeed baa? mise waa mid isku dhafan? in badan ayaa aan dhegaystay maasada dabahuwan ee abwaanka weyn ee hadraawi. sida ay u dhan tahay waxa ay ku saabsan tahay ciishoodkii fakaraaga, isweydiintii abwaanka, qumaatidii gabyaaga iyo ashqaraaradii fanaanka. laakiin waxa aan si ka xumaansho leh isu weydiiyey yaa dhalinyarada waxbaratay ka mid ah oo fahmaya luqadan. faca Facebook miyay fahmayaan afkan koreeya? mase karaya in uu maasadan 100 meeris ka badan akhriyo? mase leeyahay dhiiranidii uu salka ku gaadhi lahaa? alla facan maxaa lagu tacab qasaaray? alla ummadan maxaa falxumooyin horyaala xilligan tiiha? in badan oo aan keli ahay ayaa aan ka fikiray suuragalnimada in la heli karo koox suugaaneed leh dhadhan fikir ee aan lahayn dhadhan suugaaneed keli ah. waayo imika waa laga baxay xilligii suugaanta bilaa fikirka ah. balse waxaan is ogaaday in aan hurdo ku jiro ee aanan soo jeedin. ma jiro xiriir ka dhexeeya maanta fanka iyo fikirka. fakaraagii waxa uu ku nool yahay noloshiisa fikirka iyo aqoonta ah. fanaankiina waxa uu dabaalanaya caalamkiisa u goonida ah. waxaynu aragnaaba loolan u dhexeeya aqoonyahanka diineed iyo fanka. hadda waa isku dhoobe keli ah, balse mooganaan ay moogan yihiin qadiyadahooda ayaa mid kasta ku koobtay adduunkiisa u gaarka ah. fan ma aha waxaynu maanta ku arkayno fanka isdhexgalka isku milanka iyo cambaarta ka durugsan akhlaaqdii bulsheed iyo qaayasoorkii ummadeed. mana aha diin waxa aynu ku arkayno diimeynta finnimada fikir, dib u dhaca suugaaneed iyo maqnaanshiyaha kama dambaysta u eg ee qurxoonaantii. kala tagsanaantan labada qolo ka dhex jirta waa in la awdaa. midkoodna ma joogo maanta bartii looga baahnaa. fanka oo dhani hees ma aha. hees oo dhanina jacayl kuma saabsana. jacayl oo dhanina dumar kuma meeraysto. dumar oo dhanina ma khuseeyo galmo iyo jidh. fanku waa quruxdii oo laga sheekaynayo. quruxduna waa arrin ku xeel dheer aadanaha, koonka ballaadhan, mala-awaalka suugaaneed iyo dhaxalka dadka. haddii qurux la waayana fan waa la waayey. marka fanka la waayana dareennada ayaa dhinta. marba haddii ay dareennadu dhintaanna dadnimada ayaa gebagabowda. diintu kuma go'doonsana xalaal iyo xaaraan ama mashruuc fatwo. diintuse waa nolol, waxaana ku jira nidaamkii dhannaa ee nolosha iyo asalnimada nololeed ee nolosha. dareemidda quruxda qofka aan intaa dareensanayna diintu waa ay ka guurtay quruxdiisa. muslimku eebba ayuu jecel yahay, waayo eebbe wuxuu abuuray koonka qurxoon. koonkaasna qofku wuu jecel yahay waayo wuu qurxoon yahay. dabeecaddana wuu jeceliyay waayo way qurxoon tahay. aayadduna waa tii ahayd xoolahana wuu idiin abuuray oo waxaa idinku sugan diirimaad iyo dheef. waxna waad ka cuntaan
waana idiin qurux marka aad foofinaysaan iyo marka aad mayracaysaanba. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. مسلم كسورة قل معها إنه كفلا قوبا قرحدا وأي حقيد أيو فدر أهاني الدين أهانبا وإيلانيا balse abaarowga fakar ayaa ku abuuray neecbaanshiyaha quruxda wuxuuna muslimkii ku nool yahay xaalad waali ah. ma maqlayo heeso qurxoon iyo nashiidooyin birlab ah, kuma soo raaxaysanayo tegidda tiyaatarada oo xilligii tiyaatarka iyo masraxiyadihii ujeedka lahaa ee kicin jiray ra'yiga dadweynuhu wuu dhammaaday. mana bandhigna soohnaantii suugaaneed xilligaasi waaqicina wuu ka guuray. xilliga nolol gebigeedu waa kala dhiman ayaynu ku noolnahay. quruxdii ayaynu ka baadigoobaynaa meel aanay ool. halkii quruxda waxaa inoo galay agabyadan elektrooniga ah ee dadkii bilaa qalbiga iyo xitaa bilaa caqliga ka dhigay. taa waxaa dheer in qofkii aanu ku noolayn wacyi dadeed oo naftiisii ay ku idlaatay qalabka. galbeedka weli tiyaatarku kaalintiisii ayuu ciyaaraa. welina dadku tiyaatarada ayay u tagaan daawashada masraxiyado dhibaatooyinka dadka uga hadlaya qaab suugaaneed, ilbiriqsi gaar ah iyo goob jaad gooni ah. halkaas oo keli ah ayuu qofku naftiisa kaga xoreyn karaa qalabka. halkaa oo keli ah ayuu qofku ku garwaaqsan karaa badweyntiisa dadeed. halkaas oo keli ah ayuuna qofku kaga bixi karaa xabsiga horfadhiyada qalabka, cidhiidhiga xafiisyada iyo nolol maalmeedka iska daba wareega ah. ugu dambeyn wax kasta dhulkeennii way ka jabaqdaayeen. waalida iyo warbaahinta quruxda ka maran mooye wax kastaana way ka aamuseen. amarada sarsare ee xukuumadda, wadaadada ama waalidka mooye barbaarintii dadbanayd ee abuuri jirtay ra'yiga dadweynaha ee fanka iyo suugaanta ku jirtay waxa ay dhulkeenna uga haajirtay si bilaa fasax ah. sababtaas ayaa dadweynuhu xilligan cakiran ugu nool yahay dhadhan la'aan. waxa aan marar isku dayay in aan daawado muuqaalada masraxiyado goosgoos ah oo dhalinyarada fanku samaysay. kolkaas ayaa aan arkay in ay isu wada eeg yihiin oo aanay hal abuurnimo lahayn. kulligood waxa ay ka hadlayaan ugaarsiga haweenka sidii oo fanka jiritaankiisuba intaas yahay oo aanu isinaba uga tallaabsan karin. fanka gudaha iyo kadibadba waa isla sidaa. sheekadooduba intaas ayay dhaafi weyday. markaas ayaa aan isweydiiyey waayo ilaa haddana uma helin warcelin aan ka ahayn dibudhaca dhaqan iyo fikir ee abuuranaya caalamkiisa. waxaana dibudhaca ka mid ah in aynaan soo hadal qaadin goldololooyinkeena suugaaneed iyo fikireed. fanka soomaalida ayaa aan wax ka dheehday. alla jecelya in qalinley ka tirsan walaalaha canfartu ay dheehdaan fanka canfarta. gunta shacabkan soomaalida waxa ceegaaga dhaxal qurxoon, suugaan sarreysa iyo afaneed bilicsan. fanka canfartu waxa uu la bilowday fanka soomaalida waxaanay ku soo raadbarteen jawiye isu dhow. waxayna u eg tahay in ay isku dhiila haysato. quruxda waan jeclahay oo waa habkayga aan xorriyadda ku gaadho. xorriyadduna waa gudaha oo laga xoroobo. fankuna waxa uu ka sheekeeyaa gudaha iyo quruxba. sidaa oo kalena diinta salkeedu waa xorriyad iyo rabbi keli ah oo la caabudo. halkan ayuuna qofku iska helayaa qurux iyo qaybtirnaanba. waana jeclahay fanka koran waayo la'aantii noloshu waxay u sii guran doontaa xagga qalabdoonnimada. nolosha salkeeduna maaha qalab ee waaba ay ka sarreysaa kana xeel dheer tahay qalabka. sidaas darteed ayaa aan u diidaa in aan cid kale noqdo. hayaabin anigu waan jeclahay suugaanta caalamiga ah waayo waxaan ka dhex helay quruxdii aadanaha. waan jeclahay suugaanta reer bariga waayo waxa aan ka dhex helay sida aadanuhu u jecel yahay dabeecadda. waan jeclahay suugaanta faransiiska waayo waxaan ka dhex helay leexsanaan la leeco xagga xorriyadda iyo kacdoonnada dhanka ka ah wixii duugoobay. waan jeclahay suugaanta jarmalka waayo waxaan ka dhex helay isdhiibin la'aanta iyo raadinta micnaha. waan jeclahay suugaanta ingiriiska waayo waxaan ka dhex helay dhadhaminta iyo dareemidda quruxda.
waa aan jeclahay suugaanta carbeed waayo waxaan ka dhex bartay caqiidada, fekerka iyo fiqiga. waa aan jeclahay suugaan oo idil waayo waxa aan la noolahay waayo aragnimada aadanaha ee ku duugan dadnimada. markaasoo keliya ayaynu garan karnaa qofku xilliga uu ka xoroobayo laba midabaynta